السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان umada Soomaaliyeed meel ku joogaan waxaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Halkan waxaan ku soo gudbinaynaa xog xaqiiqo ah ee aan ka soo tibinay ama aan ka soo qaadnay warbixino fara badan iyo la xiriiris fara badan oo la sameeyay jilaaga weyn mutujirka turjumaaga weyn ee majaajilistaha weyn ee Cabdi Muriidi Dheere Ajakis. runtii qof walba waa xanuunsanaa, qof walba dhibaato waa ku dhici karta adduunkan caafimaad dhammaystiran ma jiro, nolol dhammaystiran ma jirto. Cabdi Muriidi Ajakis waa xanuunsan yahay, ilaahay caafimaad ha siiyo, ilaaha caafimaadka hayo. mar walbana qof bini'aadanka caafimaad dhammaystiran ma helayo. la xiriiris fara badan iyo arrimo fara badan oo dabagal fara badan oo la sameeyay Cabdi Muriidi waxaa la xaqiijiyay in uu isbitaal ku jiro, uu xanuunsan yahay. maanta waxaa laga soo sheegaya wanaag qofka bini'aadanka ah mar walba xaalad ayaa ku soo kordhaysa, mar walba sidaad ahaan jirta ma ahaanaysa. caafimaadkan ilaaha hayo, xanuunkan ilaaha hayo, geeridan ilaaha hayo. dad badan oo baraha bulshada la wareegayo Ajakis waa dhintay, waa marka labaad ama Ajakis oo nool waa dhintay la dhahay. runtii ma oga Ajakis noloshiisa iyo geeridiisa danta ugu jirto ma garan karo, laakiin qof walba inuu u dhimanayo kullu nafsin daa'aqatul mawt. geerida waa dhimanaysa, ama been sheeg ama run sheeg, ilaahay maalintuu ku oofsanaya ee dhimanaysa. marka ninkan saaxiibkeena ah, majaajilisteena weyn ah, jilaageena weynka ah, runtii in badan ayuu wadankan waxyaabo fara badan iyo waqti fara badan uu kusoo bixiyay. waayo wadanka burbursanna waa dadkii u soo halgamayay xagga majaajilada. wadan walba wuxuu leeyahay jilaayaal, wadan walba wuxuu leeyahay dad wax u turjuma ama ugu shaqeeya. runtii luuqadda Soomaaliga maanta say meel walba loogu garanayo looguma garan lahayn. dadka aad iyo aad ugu dhawar adeega ayuu ka mid yahay. waayo af Soomaaliga markii la qoray kadib bartiisa loogu tagay, anaga oo kaliya ku hadli jirnay. laakiin haddeer dhalinyaro fara badan oo caalamka ku dhalatay oo wadanka weligoona aan arkin, haddana waxay nasiib u yeesheen in af Soomaaliga nadiif ay helaan, filmaan af Soomaaligooda afkooda hooyo lagu fiirsanayo in ay helaan, musalsalaha noqoto, culamadana ay tahay udub dhaxaadkii ee meel walba oo ummadda joogaan hogaaminta u ahaa ee mar walba af Soomaaliga lagu gudbinayay dacwada. marka maanta waxaan haynaa xog rasmi ah xaaladda uu ku sugan yahay Ajakis oo wiilkiisa laga wareystay oo idaacadaha wadanka ee localka ee Muqdisho dhexdeeda ka shaqeeya ay ka wareysteen. runtii cid aabihiisa ama waalidkiisa been ka sheegay ma jirto. xogta rasmiga ah ayaan asiga noogu waramayo. codkan soo socdo wiilkii Ajakis uu dhalay iyo wariye ka shaqeeya idaacadda danan ay iswareysanayaan. teeda labaad marka xaaji banaadir abwaankii weynaa, jilaagi weynaa, asigana wareysi uu ka bixiyay, uu xaqiijiyay Ajakis inuu xanuunsan yahay. codkan soo socdo nala dhageysta. run ahaantii dad badan ayaa waxay baraha bulshada la marayaan been waxaan jirin, waxay meel u socdaan meel kale la garanayn. laakiin xogta rasmiga ah mar walba waxaan siin karo dadka asiga u dhow, qaasatan familkiisa. anaga markaan helnay codka rasmiga ee wiilkiisa asiga uu dhalay oo asiga aabaha u yahay Maxamed, markaas aan go'aan ku gaarnay inaan soo gudbino xogta rasmiga. waa dad badan ayaan arkaynay markii waa xanuunsadaa la isla markii baraha bulshada kula soo orday si fiis badan u helaan. laakiin mar walba waxaa fiican xogta rasmiga markaad heshid inaad warbixin soo gudbiso. halkan marka waxaan ku haynaa xogta rasmiga ah ee ninka jilaageena weyn ahaa Ajakis. nala dhageysta waa codkii wiilkaas iyo wareysiga wariga dhex marayo. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. warka ay baraha bulshada lagu faafiyo ay joojiyaan. dhinaca kale abwaan Maki Xaaji Banaadir ayaan ka wareysanay xaaladda caafimaad ee majaajilista Ajakis, waxaana ka waramaya wariyahayaga xasan cali aadan. Cabdi Muriidi Ajakis oo si weyn looga yaqaan guud ahaan dalka Soomaaliya isla markaana turjuma aflaanta iyo waliba rubaayadaha waaweyn ayaa waxaa lagu dabiibayaa mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho.
kadib markii xanuun uu ku soo booday shalay galinkii dambe. sida ay inoo sheegeen ehelada Ajakis ayaa waxaa lagu dabiibayaa isbitaalka Yaardimeyl ee magaalada Muqdisho. ehelada sidoo kale waxay inoo xaqiijiyeen in aabahoodu kooma ku jiro isla markaana ay dhakhaatiirtu u sheegeen in uu qabo xanuun dhinaca sambabada isla markaana caabuq uu jiro. waxay sidoo kale sheegeen in bulshada Soomaaliyeed ay u soo duceeyaan isla markaana wararka been abuurka ay markaasi baraha bulshada ay isku dhaafsanayaan inay yareeyaan. waxayna goor dhaweed qadka moobilka kula xirinay isbitaalka Yaardimeyl ee magaalada Muqdisho Maxamed Cabdi Muriidi wiilka uu dhalay Ajakis. محمد عبد المريد حنون وهر وقبل الإنسان أهم حنون شلي صباحدي صوب وضعها كان مسيرة صلاة حافظ له بالسوري حوالي ونفسي كان حاسة أجل لواتن ديخ عمل صدن ديخ عمل مركب جيفة من سوى ساعي أنا بحث عن المركب هذا الإسبتال وصوقها لي الكبيرة لأنه أفكر على تعالى أي سيو ذي قليل نفسك وحوالي ناس كبيرة دعين كأسيو ذي قليل ما شاء الله عليه أما كده شيء تلبسه في هنالي علي كمبيوتر يسارين سكان يسارين إنه حصل بحر إنه صندوق وضع infection جرى لما بعهي هاي إن خارجية للسيو وأسيو اسمه كمار من بعهي ما خلنا حتى كلا أبدأ ما أحد إنه صندوق infection جرى كل يوم ما ولا قوم جرى ولا أي قوم لكلين خاطر أي واحد القوم اللي كلهم خصبي هاي ما دام تبقى أفكار كلنا أكسجين كلوكسينا مركا أي كان قرصونا كل ماشي استدار كود شغلنا قبلات وذكر معهم إن شاء الله كنا نقول لكن إن شاء الله والله حلا كل اللي صوت أيام أنت خفاض شاء كل كان يجي جرنا إذا كانوا يجي جرنا إن شاء الله صوت كل تيم كيس جنوات أدو عفنات إن شاء الله إلى صوت إنسان أدو تيسة بناتنا ما شاء الله قدرت أو حتى منهن نوع عفنات كل كرسالة هاي أو تغيشان ما كان إن شاء الله إذا تعرفت كمان على صوت عفو إنه عفنات كلها سنقول كان أول كسمينا أجيك صوت انتباهين حديث حياة كل يسلم هنا قفنا تسوق يسلم لنا قرمتنا kale habwaan Maki Xaaji Banaadir oo kamid ah habwaanada Soomaaliyeed isla markaana si weyn u yaqaana majaajilaysta Cabdi Muriidi Ajakis ayayna wax ka weydiinay bal xaaladda caafimaad iyo aqoon ahaan waxa uu ka yaqaano Ajakis. وأجرى وركاس بعد الدور وحنوصلي الاسبتال كلا دقي أنا وحن كصوب حي بعد المغرب السادسة بعد العشرة عندي الحمد لله هذا الشيء وعدنا كسوتي هذه حالة ديسي محلي أنت ميرجع حنونك وحال كشيران نخسكي إنه كوير علي كل حتى بارسة سعوتا وكوسونا بقاتل تدويلة والله الحمد لله إلى هذا الكفر عافمنا ورجعنا دكاترتنا ولا تعالى يعني Cabdi Muriidi Dheere Ajakis oo markaasi si weyn looga yaqaan guud ahaan dalka Soomaaliya isla markaana turjumo aflaanta Hindiga iyo filimaanta ee markaasi afafka qalaad lagu turjumo lagu fasilo ayaa waxa la sheegay in shalay galinkii dambe uu xanuun ku soo booday isla markaana xaaladiisa caafimaad lagu dabiibayo isbitaalka Yaardimeyl ee magaalada Muqdisho. sidoo kale eheladiisa ayaa inoo sheegay in dhakhaatiirta ay kooma geliyeen kadib markii ay arkeen xanuun dhinaca sambabada oo markaasi la tacaalayaan.